kulanti wacan oo wanaagsan qiyaari waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu doorka roona waxa qayb ka noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya oo markaan sheegtay in weerar military ay ku qaadi doonto magaalada Hargeysa isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo markaan go'aan la yaab leh ku bixiyay in markaan weerar military lagu qaadi doono magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliya hadaba muxuu yahay go'aanka la yaab kale markaan ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya حسن شيخ محمود أيام كل وذاك دونا صاحب يال لنا كلنا قضبة كلنا وحقيب كنا قنيا سنتر يوسف كلا وزير هراء عثمان دبي الوسود بيه هرجيسة أيار هرجيس واحد وشيء إن ميت دتك كسو جيدا وقوي قلبي مركزي ميت كود اللي عن شورو مجال مقدسه هذا كلا ياب كلا مركني كسو يري سنتر هراء عثمان دبي أيام كل وذاك دونا صاحب يال لنا كلنا هدي أينو إجنا ciidamada ICE ee Mareykanka ayaa Minneapolis waxay ku direen gabar Soomaaliyeed oo markaas ka qayb qaadanayay dibadda bax lagu soo horjeedo ciidamada ICE oo markaan musaafiriin ka wada markaas gudaha dalkaasi Mareykanka dhinaca kalena qodobada kale hadii aynu eegno madaxweynaha dalkaasi Burkina Faso Ibrahim Traoré geesiga reer Afrika u soo baxay markaasi ayaa waxa lagu soo maray oo lagu soo waramayaa in markaasi uu ka badbaaday isku day dil hadaba waxaan ku wadaagi doonaa markaan isku daygan dil uu markaasi ka badbaaday Ibrahim Traoré madaxweynaha dalkaasi Burkina Faso qodobadaas iyo sidoo kale qodobada kale markaasi nagu soo kordho ayaan ila wadaagi doonaa saaxiib yaal balse qodobadaas intaan ku wadaagin hadii ay tahay marka kugu horeysan soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar gambalka furo muuqaalkan like saar asxaabtaadan u share garay wixii fikirkaagana qaybta hoose ee faalada noogu reeb baad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale jaanqaadka wararkeena mahadsan daawade aynu ku bilowna soo dhawaada saaxiib yaal mar kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya حسن شيخ محمود ومركان ورئيسي غارسي TV-ga lagu magacaabo Al-Arabiya madaxweynuhu waxa uu ku yiri Somaliland waxaan ku qaadi doonaa weerar military ah hadii ay go'aankani ka soo laawayso go'aankan oo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cariisay kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu markaan sheegay in weerar ay qaadi doonaan dawladda Federaalka Soomaaliya kaasi oo ku wajahan gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland go'aankii markaan ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxa ay walaac xoogan ka muujinaya dadka Soomaaliyeed ee markaas ku dhaqan guud ahaan gobolada waqooyi waxa ayna markaan fariin bogaadina u dirayaan madaxda maamulkaasi ugu horeeyay Cabdiraxmaan Ciro inay ka foojignaadaan markaan weerarkan uu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qaadi doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yusuf Raage iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaa lagu soo waramayaa in tababar ay u soo xireen cutubyo ka tirsan commandoska gorgor oo markaan qayb ka ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada markaan tababarka loo soo xiray ayaa lagu soo waramayaa in markaan ay noqon doonaan ciidamadii ugu horeeyay ee markaasi weerar dhanka cirka ku qaadi doona ayaa leeyahay maamulka iskiisa madax banaanida isugu dhawaaqay ee markaasi Somaliland wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaana waxa uu sheegay in markaan ciidamadani loo diyaariyay sidoo kale loona qalabeeyay markaasi tababar xoogana sanadihii ugu dambeeyay loo tababarayay in markaasi duulaan ay ku qaadaan sidoo kale maamulka isku daya in markaasi Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka madax banaano taliyaha sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ayaana halkaasi cutubyo ka tirsan ciidanka gorgor markaasi ugu soo xireen markaasi tababar military oo sanadihii ugu dambeeyay ay qaadanayeen ciidankaasna ayaa lagu soo waramayaa in ay markaasi ka daadan doonaan ama sidoo kalena ay ka degi doonaan ayaa leeyahay magaalooyinka sidoo kalena Burco iyo sidoo kale magaalada Berbera ee markaasi maamulka Somaliland talaabadan hadii ay qaado dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay markaasi si kala fogaanaysaa midnimada iyo sidoo kale isku soo dhawaanshaha maamulka Somaliland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya hadaba maxay kula tahay in markaan dawladda federaalka Soomaaliya ay go'aan la yaab leh gaarto go'aankaasi oo ah in Somaliland hadii go'aankeeda ay ka noqon weydo markaan Muqdisho markaasi laga abaabuli doono weerar military oo markaasi ku wajahan ayaa leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland maxay kula tahay hadii dawladda federaalka Soomaaliya ay qaado weerar military oo ku wajahan magaalooyinka Hargeysa Berbera iyo Burco maxay kula tahay markaasi falcelin noocee ayaa ka dhalan karta wixii fikirkaaga qaybta hoose ee faalada noogu reeb daawade dhinaca kalena hadii aynu eegno senator iyo sidoo kale wasiir hore senator Usman Dubbe oo ka degay magaalada Hargeysa ayaa lagu soo waramayaa in haatan ku dhawaajay war la yaab leh oo markaasi aanan farxad gelin shacabka ku dhaqan guud ahaan magaalooyinka markaasi Soomaaliyeed senator Usman Dubbe oo markaasi wareysi siiyay saxaafadda ayaa sheegay in markaasi dadka ka soo jeedo gobolada waqooyi markaasi meedkooda lagu cashuuro hadii dadka ka soo jeedo gobolada waqooyi meedkeeda lagu cashuuro senator Dubbe oo markaasi 13 sano iska dhuuqayay nafaqada taala koonfurta
muxuu markaasi ugu hadli waayay haddii markaasi uu ka naxayo ayaa la leeyahay dadka ka soo jeedo gobolada waqooyi. maxaa xilligan ku soo aadiyay in senator Dube oo markaasi ka dhawaajiyo in shacabka markaasi ama dadka ku dhaqan waqooyi ee ka soo jeeda waqooyi ee markaasi ku sugan Muqdisho in meedkeeda laga canshuuro sidoo kalena dakhli markaasi laga sameeyo. senatorkan sidaad ogtiinba toddobaadkii hore ayuu iska casilay xilkii uu ka hayay markaasi aqalka sare ee baarlamaanka isagoo markaani hadda ka hor soo noqday markii dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirkii warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu soo noqday wasiir faafin waxa uu qayb ka ahaa aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu markaasi guud ahaan iska casilay xilkii uu ka hayay dawladda federaalka Soomaaliya. Hargeysa ayuu tagay waxa uu leeyahay shacabka markaasi waqooyi ka soo jeedo meedkooda ayaa lagu canshuurtaa magaalada Muqdisho waxna looma qabto. isaguna nafaqada iyo sidoo kale markaasi dakhliga yaala koonfur ayuu waxa uu iska dhawqayay 13 sano waxaana haatan lagu soo waramayaa in 1 milyan oo dollarka Mareykanka senator Dube oo markaasi kala degay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi Somaliland. koonfurtu waxay noqotay goob loo soo shaqo tago sidoo kalena dakhli far badan laga sameeyo akoonada laga buuxsado markii akoonkiisu wax fiican ku hubsado qofka waxa uu ku laabtaa gobolka waqooyi waxa uu yiraahdaa waan soo laabtay koonfurta dadkeena ayaa lagu dhibaateeyaa waa la cunsuriyeeyaa markaasi ayuuna waxa uu ka dhaadhicinaya dadkii waqooyi joogay in markaasi Muqdisho lagu canshuuro meedadka markaasi dadka waqooyi ka soo jeeda ee ku nool guud ahaan gobolada Soomaaliya gaar ahaan markii ay joogto koonfurta. senator Cusmaan Dube hadalkiisa dad badan oo Soomaaliyeed ayuu aad uga careysiyay waxayna leeyihiin waa wax laga xumaado in senator dhan oo ka tirsan aqalka baarlamaanka oo markaasi ku matala deegaan ahaan gobolada waqooyi dadka halkaas ku nool inuu maanta yiraahdo Soomaaliya waxa lagu canshuurtaa meedadka markaasi dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi. arintan falcelin xoogan ayay ka dhalatay saacadii ugu dambeeyay baraha bulshadana iyada ayaa la isla mariyay oo waxa eedan culus markaasi loo jeediyay senator iyo sidoo kale wasiir hore Cusmaan Dube oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. dhinaca kalena hadii aynu eegno markaasi ciidamada ICE ee markaasi Mareykanku uu leeyahay kana howlgala qaybo ka tirsan wadankaasi oo Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay haatan guud ahaanba ka taqluusan ayaa leeyahay gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah sidoo kalena markaasi ka soo horjeeday in ciidamada ICE oo markaasi howlgal markaasi musaafiriin ka waday magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. ciidamada ICE sidaad ogtihiinba waa ciidamada markaasi Mareykanka u qaabilsan in dadka aan sharciga haysanin ama soo galootiga markaasi ku soo gala dalka Mareykanka ay guud ahaanba ka taqluusan sidoo kalena inta ay xabsiyada kala duwan u taxawaan dabadeedna ay markaasi u celiyaan wadankii ay markaasi ka yimaadeen oo markaasi iyagu sheegeen in markaasi qaxooti ay ku yihiin gudaha dalkaasi Mareykanka. dhacdadan ayaa haatan waxa aad loo hadalhayaa magaalada Minneapolis oo ay u badan yihiin dadka Soomaaliyeed oo markaasi majority ugu badan ku leh maadaama ay Soomaalida ugu badan degaan Minneapolis. gabadhan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku soo aaday markaasi howlgal ay fulinayeen ciidamada ICE markaasi bartamaha magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. gaari ay leeyahay muuqaalka kaaga muuqato ayay ku horjartay ciidamada ICE dabadeedna markaani si toos ah ayaa loo tooganaya gabadhan iyadoo markaasi gaarigii ay wadatay wax yar kadib markuu uu dhaqaaqo sidoo kalena shil uu galayo waxaan lagu soo waramayaa in markaasi falkan foosh xun ay ku kaceen ciidamada ICE. ilaa iyo haatanna war rasmi ah kama soo bixin ciidamada ICE oo ku aadan dilkan foosh xun ay u geysteen gabadhan Soomaaliyeed oo markaasi ku noolad ayaa la leeyahay magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. ciidamada ICE guud ahaan haatan banaanbax xoogan oo loogu soo horjeedo ayaa haatan ka socda magaalada Minneapolis kadib markii falkii foosh xuma oo xushmada ay kula kaceen gabadhan Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa. gabadhan ayaana markaasi gaarigii ay wadatay waxa si toos ah u tooganaya mid kamid ah ciidamada ICE oo goobta ku sugnaa waxaana markaasi suurta gashay ayaa leeyahay in gabadhi isla goobta ay ku geeriyooto. ilaa iyo haatan ciidamada ICE waxay hore u sii wataan ayay leeyahay howlgalkooda maadaama ilaa iyo haatan aysan wax dhag jalaqa u siinayeen ayaa leeyahay banaanbaxaasi ay dhigayaan dadka kala duwan ee markaasi ku nool guud ahaan Mareykanka oo markaasi hadii ay noqdaan Soomaalida iyo sidoo kale ajaanibta kale markaasi ku dhaqan guud ahaan magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. dhinaca kalena war la yaab leh ayaa ka soo yeeriyay qaaradda Afrika gaar ahaan wadanka lagu magacaabo Burkina Faso oo markaasi u soo baxay haliyay qaran oo markaasi dalkiisa iyo sidoo kale dadkiisa waxa uu qabtay waxaana lagu magacaabo markaasi Ibrahim Traoré. magacaan marar badan ayaad baqashay Ibrahim Traoré waxa lagu soo waramayaa in haatan uu ka badbaaday isku day dil oo markaasi kala kulmaya ayaa leeyahay kooxo markaasi ay markaasi dabada ka riixayaan Mareykanka maadaama ninkani madaxweynaha markaasi Mareykanka uu warqad casuumaad ka helay warqadii casuumaad
macluumaadka uu markaasi Trump ka helay waxa uu sheegay in markaani Burkina Faso uu haatan markaasi isana uu suurtagal u yahay inuu markaasi mushaharaad iyo sidoo kale kulamo uu dalkiisa ugu baxo maadaama shaqo weyn markaasi ay ka sugayeen ayuu leeyahay dalka Burkina Faso iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan warqadii invitation ka ahayd markaasi kaga timid aqalka cad ee Mareykanka guud ahaanba madaxweynaha dalkaasi Burkina Faso Ibrahim Traoré waa uu iska kansalay waxa uu markaasi sheegay in haatan wadankiisa soo kalena waajibaad markaasi rasmi ah uu hayo madaxweynaha Mareykanka ayaa haatan lagu soo waramayaa in markaasi isku dayeen dil isagu gadaal ka riixayo waxaana haatan ciidamada dalkaasi militariga ee Burkina Faso ay xaqiijiyeen in markaani isku daygan dil uu ka badbaaday madaxweynahooda markaasi Ibrahim Traoré isku daygan isagoo la fulin rabo ayaa waxa markaasi ka warhelay ayaa leeyahay sirdoonka dalkaasi Burkina Faso isla markiiba madaxweynaha goobta laga waday sidoo kalena waxa lagu wargeliyay in markaani qorshe la yaab leh loo dejiyay qorshahaasi oo ahaa in markaasi Ibrahim Traoré laga taqluuso guud ahaan bal isku horeejiyo Ibrahim Traoré sidoo kalena Burkina Faso waxa uu ku qabsaday Afgambi kadibna waxa uu isku soo sharxay ayaa la leeyahay hogaanka madaxtinimada sidaasna ayuu kula wareegay markaasi inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Burkina Faso haddaba maxay kula tahay in Burkina Faso uu ka badbaado isku day dil oo markaasi la qorsheynayay in guud ahaan laga taqluuso iyo sidoo kale go'aankii markaasi ka soo yeeray senator Usman Dube oo sheegay in gobolada waqooyi markaasi dadka ka soo jeeda meedadkooda lagu canshuuro magaalada Muqdisho iyo sidoo kale in dawladda federaalka Soomaaliya ay weerar military ah ku qaadi doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland iyo sidoo kale markaasi ciidamada ICE oo markaani weerar bahalnimo ka wada magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka wixii fikirkaaga qaybta hoose ee faalada noogu leh waad ku mahadsantahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena